halkani oo ah jidka weyn ee xiriiriya gobolada Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley ayaa maanta waxa ay ciidamada bilayska ee gobolka Gabiley ka bilaabeen hawlgal ay ku baarayaan maandooriyaha iyo hubka kala duwan ee ay bulshadu isticmaasho taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay maalmihii u dambeeyay ay wadeen hawlgalkani isla markaasina ay ka fuliyeen qaar ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley waxaan hawshan ayaan badda ku jiraa hawlgalku dambadaba waa socday ciidanka booliska dambadaba hawlgalka waa ku jiray gaadiidka la baarayaa waxa muqaadaraadka loo yaqaan xashiishada iyo khamriga iyo yaa la baarayaa baabuurta waxa la baarayaa liisankooda iyo buugooda la jeegaraynaya wixii aan liisan iyo buug wadanin waa la xireynayaa oo waa la qabanayaa baangadaha iyo burarka iyo tooreeyaha iyo waxa waa laga ururinayaa qalabka arma baangeeda loo yaqaan waa la ururinayaa marka ciidanka booliska maxamed raay qaybta Gabiley bariyan baawgalka waa ku jiray ayay saddex wajaalan joogno 200 baabuur baan meel isugu geynay oo wada liisan la'aan iyo buug la'aan baangado iyo burar iyo tooreeyo iyo sameecada dhaadheer oo martay xaajeedaha iyo bajaajyada saaro waa ka furfurnay kana hawlgalkii uu la mid yahay insha Allah waa wadi doonaa maalmaha soo socdana maalinimana waa wadi doonaa hadii la hayd habeenimana waa wadi doonaa degmooyinka gobolka oo dhan ciidanka booliska waa ku hawlgali doonaa waa kuwa saraakiishii ciidanka wada shaqeynaya waa kuwa hawshayaga wada insha Allah hawsha waan wadi doonaa hadii la haydno taliya sidaad la socoto gobolkan Gabiley waxa uu ku yaala xuduud dheer oo uu la wadaago dalka Itoobiya xuduudaasi hawlgalmo ka sameeyeen horta ma dhawada su'aasha waa la weydiiyay waa ka jawaabay anagu gudaha ayaanu ka sameeynaa Itoobiya xuduudiisa aan inta aan leenahay baan ku hawlgalnaa inta dawladda Itoobiya leedahay iyaga leh marka intooda anagu uma gudubno oo ku wada xad gudubno waa maamulada wada shaqeyn leenahay weeyo darisnahay weeye marka amniga aanu sugeynaa waa dhinacayaga iyo xuduudayada iyo degmooyinkayaga weeye laakiin meel kale uma gudubno taliya dadka ajaanibka ah ee oromada la yiraahdo marka ay gaadiidka saaran yihiin waa lagu qabtaa kantaroolada laakiin waxa jira iyaga oo lugeynaya oo kantaroolada agmara arrinkaasi waa maxay loo qaban waaya markaas haddaan la kulano anagu lug iyo baawur labada waa qabanaa immigration ku wareejinaa immigration ka xil saaran anagu wajaalaan u geynaa immigration ku wareejinaa immigration kuna waa naga qabtaa qoraal baanu kala samaysanaa waa gudbiyaan dhinaca ay ka yimaadeen bay u gudbiyaan marka haddaan la kulano nidaam loo diiday ka lugeynaya inaan qabanin ma jiro ciidankuna marka waa qaban ka lugeynaya waa maxamed cabdi cumar maxamed door qurbaynta SBC gobolka Gabiley